wafdi ballaaran uu hogaaminayo gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland uu helinayo xubno kamid ah saraakiisha ciidamada militariga iyo booliska maamulka gobolka ee kan degmada Laascaanood iyo waliba Professor Axmed Ismaaciil Samatar ayaa booqday deegaanka Tukarraq ee gobolka Sool waxayna warbixin ka dhageysteen saraakiisha ciidanka ee halkaasi ku sugan ugu horreynna waxa goobta ka hadlay taliyaha guud ee ciidanka militariga 7 kiiloomitir iyo magaaladu iyo halkan isku jiraan annaga iyo ciidanka naga soo horjeedana 7 kiiloomitir baan isku jiraa gudqababa la yiraahdo tuulada xagga naga xigta 7 kiiloomitir baan isku jiraa marka burca laga soo qaado ilaa halka aan joogno 21 sano ku nimid 21 sano marba meel soo degan waa burco laga soo qaado barasaabka gobolka Sool Cabdi Khayr Adirir ayaa isaguna warbixin ka siiyay wafdiga xaaladda guud ee gobolka warbixintii ciidanka jananka bixiyay midna gudoomiye gobolka guud ahaan waa nabadgeliyo gaar ahaan deegaanka Laascaanood iyo degmooyinka kalena waa fiican yihiin wax xanuun ah oo xoolaha iyo dadka hadda hayaana ma jiraan waa Ilaahay mahadi mashaariic fara badan oo jananku qayb ka dhawaajiyay ayaa hadda gobolka socota oo xukuumaddu ka wado gaar ahaan magaaladan ama deegaankan Tukarraqeed Professor Axmed Ismaaciil Samatar oo ka hadlay goobta ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay howlaha ciidamada militariga Soomaaliland ay ka hayaan deegaanka Tukarraq ee gobolka Sool ciidamo amba bilaysan noqdaan ama military ha noqdaan meel walba laba amuurood bay u taagan yihiin mid waxa ugu horeysa waxa weeye daafac wadante xadka wadanka inay daafacaan marka Allah idin la jiro aad iyo aad kashka iyo laabta ayaan anu idin ku farxay gabagabadiina gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland Baasha Maxamed Cabdi ayaa isaguna goobta ka hadlay wuxuuna sheegay in ciidamada Soomaaliland ay u taagan yihiin nabad madaxweynuhu wuxuu ku baaqay xabad joojin wuxuu ku baaqay nabad qoladan reer mudug waxay u yaqaaneen haddaad tiraaho war nabad iyo aan nabadno dagaalka joojinno waxay u yaqaaneen daciifnimo u yaqaaneen oo niman laga baqay ayay isu qaateen maalmo dhaweed oo madaxweynuhu hadlayay waxay yiraahdeen haja keela cunti cabaata madaxweynuhu nabad buu ku baaqay maaha macnaheedu nabadda lagu baaqay waxa weeye dalkan inuu joognaa waa dalka Soomaaliland حمزة حاجي محمود رادية ورقة تلفزيون عالمي Universal Laascaanood